kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa muuse xosho waxaad kusoo dhawaataan wararka wargeysyada iyo waxyaabihii suuqa kala iibsiga ay ka qoreen. Suuqa kala iibsigu markan waa uu furan yahay oo kooxuhu ciyaartoyda ay doonaan waa ay la saxiixan karaan, waxaana qodobada ku jira oo aan idinkugu hayo ka mid ah Manchester United oo isku dayeysa markan Victor Gyökeres inay weerarkeeda kusoo xoojiso inta bishan lagu jiro. Real Madrid iyo Trent Alexander-Arnold halka ay kala marayaan. Arsenal oo ugu horeysa kooxaha doonaya Cumar Marmuush oo Eintracht Frankfurt ka tirsan, iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku jira. U diyaar garooba daawadayaal, subscribe-ta inoo siiya qaybta YouTube, Facebookna followda iyo like-ta noogu dhufta, waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena. Aynu ku bilowno. Kooxda Manchester United ayaa isku dayi doonta inay la saxiixato weeraryahanka kooxda Sporting Club Portuguese iyo waddanka Sweden Victor Gyökeres, kaasoo 26 sano jir ah inta lagu guda jiro bishan January, balse heshiiska ayaa la rajeynayaa inaanu ka hooseyn doonin qiimo ahaan 80 milyan oo ganiga sterlinka, sida wargeyska Mirror ee Ingiriiska kasoo baxa uu wariyey. Real Madrid ayaa isku dayeysa inay la saxiixato Trent Alexander-Arnold oo ay dooneyso in heshiis horudhaca uu kooxda la gaadho. 26 jirka Ingiriiska ayaa la sheegayaa inuu ka tegayo kooxda Liverpool, balse kooxda La Liga ayaa dooneysa in uu la sii heshiiyo si aanu ciyaaryahankani maskaxdiisa u bedelin oo koox kale aanu ugu wareegin, sida Relevo Spain kasoo baxa uu warinayo. Balse kooxda Liverpool ayaa waxa ay sheegtay in Trent Alexander-Arnold xilli ciyaareedkan aanay sinaba ku diri doonin, xataa haddii ay u harsan tahay 6 bilood oo heshiiskiisa ka dhiman. Real ayaa dooneysa bisha January iyo wixii ka dambeeya inay u qalab qaadato sidii xiddigan ay si bilaasha ugu qaadan lahayd. The Times ayaa wariyey. Barcelona agaasimaheeda dhinaca ciyaaraha Deco waxa uu sheegay in Liverpool ciyaaryahankeeda reer Colombia ee Luis Diaz ay kooxdani dooneyso, islamarkaana 27 jirkan ayaan ku faraxsanayn in weli aanay bilaaban wadahadalada heshiiska loogu kordhinayo, wax horumarana aan laga samayn. Wargeyska Sport ee dalka Spain ayaa wariyey. Arsenal waxay hogaamineysaa doonista saxiixa Eintracht Frankfurt weeraryahankeeda reer Masar ninka la yiraahdo Cumar Marmuush oo 25 jir ah, kaas sidoo kale kooxaha xiiseynaya ee Ingiriiska iyo Yurubta kale ka dhisan waxaa ka mid ah Liverpool oo Ingiriis ah, Paris Saint-Germain oo Faransiis ah, iyo AC Milan oo Talyaani ah. Give Me Sport ayaa sidaas wariyey. Kooxda The Gunners sidoo kale waxa ay tixgelinaysaa inay la saxiixato Manchester United weeraryahankeeda Marcus Rashford, balse waxay sheegeen inaanay bixin doonin wax ka badan 25 milyan. 27 jirka reer England ayaana wax fursada aan ka haysan kooxda United, sida Football Transfers uu isagu wariyey. Rashford ayaa waxa uu beeniyey in wax wada hadal ah uu la furay wakiilo indha-indheeya halkii uu ku biiri lahaa marka uu ka tago United bisha aynu ku guda jirno. MEN ayaa sidaas isagu wariyey. Kooxda Fulham waxay cabsi ka qabtaa in ay lumiso ciyaaryahankeeda reer Brazil ee khadka dhexe Andreas Pereira, kaas oo kooxda Olympique Marseille ee horyaalka waddanka Faransiisku ay dalab u dirtay. 29 jirkan wargeyska The Times waxa uu leeyahay hadda kooxdiisu cabsi xoogan ayay ka qabtaa. Brentford, West Ham iyo Fulham waxay dhammaan raadinayaan 29 jirka reer England ee kooxda Crystal Palace khadka dhexe uga ciyaara Will Huys, kaas oo aan booska joogtadana ka haysan kooxda lagu magacaabo Crystal Palace. Football Insider ayaa wariyey. Bayern Munich iyo PSG ayaa kula tartamaya 6 kooxaha Ingiriiska ah la saxiixashada Spain weeraryahankooda Dani Olmo, kaas oo suuqa xorta ah uga wareegi kara dhinaca Barcelona. Xiddigan oo 26 jir ah, Barcelona ay ku fashilan tahay in ay diiwaan gashato, sida wargeyska Mirror uu warinayo. Manchester United ayaa waxa ay wadada u furi doontaa xidigaheeda Brazil iyo Denmark kasoo kala jeeda labadaba khadka dhexe ka ciyaara. Waxa ay muhiim u ahaayeen kooxda Manchester United, balse hadda looma arko inay sidii muhiim u yihiin. Bisha January sidoo kale Victor Lindelof oo reer Sweden ah ayaa kooxda ka tegay kara. Fabrizio Romano ayaa sidaas warinaya. Kooxda Athletic Club Bilbao waxay indhaha ku haysaa sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka ku dhashay gobolka Basco kooxda Norwich City-na u ciyaara ninka la yiraahdo Borja Sainz, kaasoo 23 jir ah, waxaana ciyaaryahanka saaxiibkii ah ay Spain ka wada ciyaaraan Nico Williams uu ka bedeli karaa kooxdan haddii uu kooxda ka dhaqaaqo. Sport ayaa sidaasna wariyey. Heshiiska ku kacaya 900 milyan oo ganiga sterlinka ee ay kooxda Manchester United kula jirto sharikadda Adidas waa la kansali karaa, waxaana
sharikadan Adidas ee Jarmanka laga leeyahay ee agabka ciyaaraha soo saartaahi ay rajaynaysaa in ay sii haysato heshiiskan haddii aanay Manchester United ka dhicin heerka koowaad ee horyaalka, balse haddii ay hoos u laabato waa laga kansali doonaa. Telegraph ayaa sidaas wariyey. Tababare Robin Amorim ayaa u ogolaan doona 17 jirka garabka bidix ee difaaca ka ciyaara Harry Amos oo Ingiriiska u dhashay iyo xidiga khadka dhexe ee Dan Gore oo 20 jir ah inay ka tagaan Manchester United si amaah, laakiin ay ku wareegaan isla bishan January sida wargeyska Mirror uu warinayo. Galatasaray ayaa wadahadal kula jirta Paris Saint-Germain si ay ula saxiixdaan ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara ee reer Slovakia Milan Skriniar oo 29 jir ah, kaasoo ay amaah ku doonayaan, sidoo kalena haddii ay suuragal noqoto ay iibsan doonaan. Florian Plettenberg ayaa sidaas isagu wariyey. Isagaas ayaa ugu dambeeyey wararkii wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen suuqa kala iibsiga. Muuse Xusho ayaa idin la socodsiinayay daawadayaal. Subscribe-ka noogu dhufta qaybta YouTube, sidoo kalena Facebook-ga follow iyo like-ta noogu garaaca. waanad ku mahadsantihiin la socodkeen.